السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتم wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan oo maalinimo axada bisha November 24 sanada 2024 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa kulamo isdaba joog ah markaasi la leh mas'uuliyiinta iyo madaxda kala duwan ee Somaliland. waxa uu saacadihii ugu dambeeyay la kulmay Dr. Adna Aadan oo Somaliland u qaabilsanay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. waxaana markaasi madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira markaasi arrimaha ay ka shaqeynayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. waxay ergeyga u qaabilsan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya. waxaana madaxweyne markaasi Cabdiraxmaan Cirro waxay u muuqataa markaasi inuu doonayo wax badan wax ka ogaada markaasi hawlihii ka soconayay gudaha Somaliland ka hor inta uusan la wareegin xafiiska. sidoo kale Cabdullaahi Darawal oo kamid ahaa mas'uuliyiintii tartamayay ee axsaabta ama ururada watay ayaa waxa uu sheegay inay maxkamad sare aadi doonto isla markaana ay ku qanceen natiijada isagoo maalin hore markaasi ka soo muuqday saxaafadda isagoo le maxkamadda sare ayaa markaasi aan tagi doonaa isla markaana aan ka sugi doonaa natiijada rasmiga inay soo saarto markaas aan barhambalyeyn doonaa isagoo markaasi laga arkay inuusan ku qanacsanayn sida wax u dhaceen iyo waliba markaa in guud ahaanba markaa doorashadii ay ku guuldareysteen ururkiisu. wararka guud ahaan soo gaaray magaalada Hargeysa ayaan soo qaadan doonaa. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaabilay guddiga doorashooyinka ee Somaliland waxaana uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada isagoo ay arrimo badan markaas ka wareysteen isla markaana uga mahadceliyay doorashooyinka ay qabteen ee bilaa saxmadda ah si markaa aad u fiican ay ugu amaaneen beesha caalamku inay u daadiyeen. waxaan dhinaca kale aan soo qaadan doonaa maanta kalfadhi kamid ah markaa kalfadhiyadii golaha wakiilada ayaa furmay waxaase saacadihii ugu dambeeyay soo galay suuqa in xildhibaan Maxamed Abiib uu u dhoofay wadanka Djibouti iyadoo muuqaalo ama markaa sawirro la baahinayay. sawirradan ayaa markaasi la sheegay in ay ahaayeen Maxamed Abiib oo ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Cigaal International isla markaana u socda wadanka Djibouti iyadoo la ogyahay in xiriir toos ah lahayn dowladaha Somaliland iyo Djibouti balse haatan laga dhursugayo xukuumadda cusub ee la wareegi doonta xukunka in ay wax badan iska bedeli doonaan xiriirkii ay la lahayd xukuumadda madaxweyne Biixi wadankaasi Djibouti. haddaba maxay tahay sababta ayaan eegi doonaa iyadoo la ogaa markaa Maxamed Abiib in sidoo kale garoonka diyaaradaha laga qabtay markii ugu dambeysay ee uu dhoofo. qodobaas iyo qodobo kale faahfaahsan ay barnaamij ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay madaxweynaha la doortay ee Somaliland ayaa weli waxa uu sii wadaa kulamada isdaba joogga ee uu la leeyahay haldoorka Somaliland. saacadihii ugu dambeeyay waxa uu la kulmay Dr. Adna Aadan oo ahayd ergeyga u qaabilsanaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya. Dr. Adna ayaa madaxweynaha ugu tagtay guriga uu ka degay magaalada Hargeysa waxaana ay markaasi ugu tagtay hambalyo iyo salaan iyadoo ugu dambeyn markaasi laga dhursugayay bal in uu qaabili doono markaa maruu inuu qaabili doono ergeygaasi isla markaana ahay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ee hore. waana markaa mas'uul muddo badan ka soo shaqeynayay siyaasadda Somaliland iyo geeska Afrikaba. waxaana uu ka wareystay sidii xoguhu tilmaamayaan arrimihii ay muddooyinkii dambe markaa ka shaqeynaysay iyo hawshii ay u qaabilsanayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ahayd markaa arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya. madaxweyne Cirro mar wax laga weydiiyay inta uusan xilka ku guuleysanin waxa uu ka yeeri doono wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya inuu dib u furi doono iyo in kale ayaa waxa uu sheegay in marka uu xukunka la wareego uu dib hadii uu ku guuleysto markaa waqtigaas kuma uusan guuleysanin hadii uu ku guuleysto inuu dib u fiirin doono faylalka yaala iyo meesha ay hawluhu marayaan iyo meelaha la isku gafay iyo waxa la isku fahmi laayahay iyo waxa markaasi labada dhinac halka ay kala taagan yihiin iyo wixii ugu dambeeyay ee labada dhinac markaasi ku heshiiyeen. waxa la ogaa Somaliland iyo Soomaaliya inay isugu imaadeen wadanka Djibouti sanadkii 2023 dhamaadkiisii halkaas oo kulan markaasi uu ka dhacay bishii December balse waxa la ogaa in maalmo kadib uu dhacay heshiiskii isfahamka ee Somaliland iyo Ethiopia iyadoo wadanka Djibouti heshiis lagu soo kala saxiixday 8 qodob ka koobnaa ayaa waxa maalmo kadib uu noqday hal bacaad lagu lisay kadib markii ay dowladaha Somaliland iyo Ethiopia heshiis wada gaareen. haddaba wixii halkaas laga heshiiyay iyo sidii arrimuhu ahaayeen iyo sababta keentay markaa Somaliland ay talaabadaas degdeg ah qaado ayaa la talaabay markaasi inuu ka wareystay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ergeygaasi u qaabilsanaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya. isku duuba haddaba Dr. Adna Aadan ayaa la talaabay markaasi in iyadu ay sidoo kale kasoo dhex muuqan doonto dowladda Cabdiraxmaan Cirro sida markaasi loo badinayo ma noqon doonto wasiir ma noqon doonto markaasi xil kale oo muuqda balse la taliyaasha iyo arrimahaasi iyo arrimihii ay u qaabilsan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
weli halkoodii ay ka socon doonaan ayaa la leeyahay. markaasi Dr. Adna Aadan waa maamo qaran. waxaa sidoo kale madaxweynaha la doortay uu wadaa howlo ballaaran oo uu doonaya markaasi inuu wax kaga sii ogaado markaa guud ahaanba Somaliland iyo wixii ka socday sanadihii ugu dambeeyay. waxaana uu arkayaa in kursiga uu la wareegi doono uu yahay mid saameyn weyn xilligan ku yeeshay Geeska Afrika, aadna markaasi wadamada Geeska Afrika ku yaala ay indhaha ugu wada hayaan. waxaana uu rabaa in wax badan ka ogaado xaaladaha yaala markaa qasriga madaxtooyada ee Somaliland iyo faylalka markaasi ay ka wada hadleen madaxda Somaliland iyo guud ahaan madaxda kale ee dunida. waa diblomaasi hore, waa nin wax badan fahansan markaasi Cabdiraxmaan Ciro, waxaana markaa la filayaa in guud ahaanba arrimahan ay noqon doonaan kuwo aanan u dhuumanaynin. dhinaca kale Cabdulaahi Darawal oo ahaa gudoomiyihii ururkii dhacay ee Horseed ayaa waxa uu sheegay in ay aqbalayaan natiijada iyadoo aanan markaa la aadin maxkamadda sare ee Somaliland, isla markaana ay u hambalyeynayaan madaxweynaha la doortay ee Somaliland. maalin dhaweyta ayuu kasoo muuqday warbaahinta isagoo leh waxaan ku qanci doonaa oo natiijada markay ku dhawaaqaan maxkamadda sare ee Somaliland, isla markaana ka hor cidna uma hambalyeynayno, cidna markaasi guud ahaan anagu tallaabo ma qaadayno. taasi oo loo arkayay in Cabdulaahi Darawal uu ku qanci laayahay natiijadii kasoo baxday guddiga doorashooyinka Somaliland ee ururkiisu uu ku dhacay. waxaana haatan uu isbedelay, isla markaana waxa uu sheegay inay aqbalsan yihiin natiijada kasoo baxday ee hordhaca guddiga doorashooyinka Somaliland. intaasi oo la gaadhinna ay u hambalyeynayaan madaxweynaha la doortay, isla markaana madaxweynaha aanan mucaaradad lagala hortegin oo la soo dhaweeyo oo halkaasi hawsha laga wado, isagoo markaasi ay madaxweynaha ay wada tageen, isla markaana la tilmaamo markaasi inuu qaabilay oo guud ahaanba ay wada hadleen. si kastoo xalku hadaba haatan waxay u muuqataa doorashadii Somaliland inay tahay doorashadii ugu dhibka yareed ee Somaliland ka dhacda, aadna markaasi loola yaabay. waxaana doorashadan ay ahayd doorasho buuq la'aan ah, cid markaasi madaxweynenimo kusoo bixi weyday iyo cid ururnimo kusoo bixi weydayba waxay noqotay doorasho la wada hambalyeeyay, la wada tahniyaday oo ayna jirin markaasi cid daalac u raacatay guddiga doorashooyinka ee Somaliland. dadkuna waxay leeyihiinba war guddigan doorashada ee sanadkan doorashooyinka qabtay ha loo wada dhigo markaasi doorashooyinka oo sidaasi markaasi abadan ah ugu hayaan doorashooyinka iyo weliba gudoomiye Muuse. gudoomiye Muuse waxa uu saacadihii ugu dambeeyay iyo weliba komishanka doorashooyinka ay la kulmeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana uga mahad celiyay doorashooyinkii ay qabteen iyo qaabka markaasi ay guud ahaan u agaasimeen doorashooyinka. gudoomiye Muuse iyo komishanka doorashooyinka ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, aadna uu soo dhaweeyay. waxaana wararku ay tilmaamayaan in guud ahaanba arrimaha oo dhan markaasi ay asal u yihiin oo uu markaasi aabbo u yahay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. oo haddii madaxweyne Biixi uu buuq ka keeni lahaa doorashadii dhacday, waxaa markaasi la arki lahaa in cid walba ay buuq ka keeni lahayd, isla markaana ay xaaladdu xumaan lahayd. balse madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa qaab odaynimo ah, qaab markaasi aad loola yaabay isagu u qaabilay natiijadiina u aqbalay, taasi oo keentay in cid walba ay ku dayato. wado fiican ayuuna jideeyay oo sunno fiican ayuu furay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo aad markaasi isagu loogu hambalyeynayo. ganacsatadii, mashaayikhdii, bulshadii dhammaan markaasi waxay ugu duceynayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaabka markaasi xilkasnimada ah ee uu u aqbalay natiijada, isla markaana wadadaasi wanaagsan uu u furay. akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.